soo dhawaada videoga aan idiin wadno waxaa waaye video ku saabsan barnaamijka aad dunida u qabsaday oo yacni magacyo fara badan yeeshay marka soo dhawaada mar kale waa tii midnimo markaana waxaa taagan halkan mahada taagan soo barnaamijka aan wadnana waa barnaamijka xaliya dad badan aan qosle barnaamijka xaliya aan wadnaa soo ninkan wuxuu ka aaminsan yahay iyo xaliya waxaa abaalka u galay ama hadduu ku dhaliilayo bal aan aragno okay horta xaliya waa taqaanaa aad iyo aad macalin xaliimo macalinka weyna baraha bulshada ay marka horta waa salaama tiim midnimo waxaan leeyahay guli gobnimo janalkan waxaan leeyahay saaxiibayaal hadee Soomaalnimada wax lagu yahay hala kala kiciyo janalkana subscribe kama dhihi jirno the like waxa sidii hala isku sharfo midda kalena marka soo laabto su'aasha waxaan ka leeyahay horta xalli waxa way hore ma jirina hore daanyar horta dadka ma isha ma ahaan jirin waxa isleeyahay daanyarnimada hadda laga dili xalli waxaan leeyahay isha waxa arkay wax saxan inuu yahay barnaamijka oo xalli keenay oo yani inuu ka hadlo adigu ku dhaliilay mise waxa ku taageeray xalli waa ku taageeraa maadaama wax dad badan arkay adi khibrado badan ma kaaga bixin waayo tusaale gabadha lacag wiil ka soo qaaday mid kale ay sheegay manaa ka sibila ama manaa nooc kale u dhaqmay ma fahmino lacagta manaa waxaan leeyahay in adiga gabar ay sheeg aad aqoon iska siin leed walaasha ama hooyadaasi adi marka in badan way kugu dhacdaa u maleynaa adoo ka wala'aan inaa kaw u gadi gabar xaflad ay ku aadayso ma wallahi hore igu ma dhicin ma sha Allah ani shaaftada zaidka ma ogolay ma fahmino xali hal iyo laba fariin maxaa halka ugu diray gabdho xali ka leexadan leeyno xali maxaa miskiin ka leexadano gabadha u jeedo xali marka magaciisa soo qaaday soo xanaaqday xali nafteeda ka leexatan leey walaal soo dhaw halkan waa team midnimo waa dhawahay magacaaga adoo maas fatuush barnaamijka aan wadno waa barnaamijka macalinka weyn macalin xaliya la magac baxay soo barnaamijkaas bal oo cusub maxaa ka leedahay wallaahi horta macalin xaliya waxa oreey lahaay gabdhaha horta mucaarad uu ku noqday anaha gabdhaha markastaba xumaantooda wareejiyaa waxaasna waa wax laga fiican yahay horta okay marka adiga barnaamijka oo jeeb baarashada maxaa ka leedahay asi jeebkoo ka hadla ma ogtahay jeeb baarashada maxaa ka leedahay والله horta qof walba wuxuu dhiibo asi wax ma ka galin moogtaa nimanko daanyeer ahayn waxaas oo macnaha oo social media la imaado wax qaldan waayo okay hadda marka macalin xaliye hal fariin oo laga gaarsiinayo oo asxaabta adeena share garay videogan si fariintaas ay u gaarto bal u reeb horta waxa dhihi lahaa macalin xaliye midkay dhahan gabdhaha horta xumaantooda oo ka wareejinayo macnaha gabdhaha saas waaye gabdhaha macnaha amarkooda yaa la qaadan lacagta say u kalma lacagta maba aha muhiimadda laakiin gabdhaha xumaantooda markasta uu wareejinayo waxaas waa laga fiicaya nin weyn waaye hooyo way dhashay macnaha way la dhasheen wuuna qabaa markastana marka inuu xumaan ka sheego gabdhaha saan waaye amarkooda yaa la qaadan daayaraha tihiin waxaas oo wada inuu joojiyaan okay walaal fariintaas waxaa waaye asxaabta waa u baaqaa inay video share gareeyaan like-na ay dhahaan ayna gaarsiiyaan soo dhawo walaal halkan waa tii midnimo barnaamijka u taaganahayna waa barnaamijka macalinka weyn macalin xaliya barnaamijkaas maxaa ka aaminsan bal maxaa dheh xaliya barnaamijka uu bilaabay aniga aan horta waa ani hadda ku jiri oo mana taageeroy ileen waxaa waaye inaa fikirkaaga ogaadaan waa moogtaa marka adi ahaan barnaamijka uu bilaabo xaliye maxaa dhihi lahayd horta reer Nairobi waxay sameeyeen wax fiican sameeyeen inatuma waa fiicneede had ka bacdi wax la dhahay malaga maqlaa bis waa ani waxa istaa way taageeraysaa jeefkii daayirnimadu way dhabaatay hadda bal xaliye waxaa rabaa inaad fariin u reebtid oo asi lagaa gaarsiinayo asxaabtan aadheena videoga share gareey si xaliye uu u gaaro waxaa leeyahay horta falka uu ku socod mid fiican maahayn san heerna Nairobi ay ku sameeyeen raggaan ugu diraysa raggan iska jeeb baarana ma dheh si fiican ay soo dhaw walaal waa dhawaa walaalo walaal bahda team midnimo janaal aan markay maxaa wadna barnaamij oo xaliye ku saabsan horta adi ahaanta xaliye maxaa ka aaminsantahay ana ahaanta xaliye waxaan ka aaminsanahay inuu micnihii hablihii Soomaaliyeed laga reebi waayo oo gabigiisba oo ku kacsan yahay wuxuu ku arkay ma garanayo ninkaas walaa idin kaftiga oo naxariisan darad waa jukeysana maqle maxaa ka jira xaq u yeeshay in la jukeeyo waayo asaga ka fog waayay
marka saas darteeda loo jishkeeyaan filaa wallaahi anaga horta muxuu dhahay ragga lacagta laga qaado waa daanyeero daanyeer lacag laga qaado inta lagu arko no wax daanyeer leh ma jiraan daanyeerna wax ma dhiibo markeeda horebo awal anagoo isku danaysanayno caadi aan lacagtaan waxaan isla isticmaali jirno hada ninba ku dhinaco aadaad marka xaliyaadda maxaa fariin u reebi lahayd xaliye waxaan fariin u reebi lahaa xaliye raggii Soomaalida uu nagu diray marka koobaad tan labaad gabdho way dhashan weyna dhaleen inuu ka leexdaan fariin ahaan u dirayaa walaal soo dhawaa walaal waa dhawaa walaal qaadi walaal soo dhawow halkan waa tiim midnimo waa dhawaa saaxiib magacaygu waa Saadiq Daawud xogaa korna u hadal barnaamijka aad joogtid waa ogtahay ninkii weyn macallinkii weynaa macallin xaliye aa ka hadlaynaa macallin xaliye waa wadanaa macallinkiina dhammaay waaye marka macallin xaliye maxaa leedahay marka adi macallin xaliye macallin xaliye macallinkiina dhammaa ku tushana waaye marka macallin xaliye dadka oo haysto iska dhaafaa leeyahay adi daanyeer ma ahaa jirta oo ma ku faa'iide yani khibrado fara badan ma ka heshay xaliye maano macallin xaliye khibrado badan oo nolosheena uu kusoo kordhiyey adi horta in badan maxaa waaye adoo kabo kale ma gade kabo xaflad lagu tagaayo ma taas iguma dhicin laakiin inaan ka digtoonaado ahaan xaliye u fiirsadaa ma fahmino marka hadda xaliye fariim noocee ah u reebay macallin xaliye waxaa leeyahay macallinkeena waa wadanaa keep going barnaamijka oo bilaaban muhiim u ah barnaamijka oo bilaaban barnaamij oo muhiim ah waaye oo bulshada dhan u baahan aad u mahadsantahay waa lagu gaarsiiyaa insha Allah